qofkii ku weydiin lahayna waa aniga run ahaantii marka maadaama aadan hadda adiga aadan sid caadiga ahayd fanaaniinta la soo xiriirin laakiin aad jeceshahay inaad shaashadaha iyo TV-da ka soo hadasho waxaan ba jeclaystay oo igala sii fiicnaataba maadaama maanta aad soo hadashay inaan arrintii aan maqlay ee na soo gaartay inaan hadda si public kugu weydiiyo kor nagala socda BK Garcia su'aashaas iyo arrintaas waxa ka jira su'aasheeda public aan kugu weydiiyaa insha Allah jawaabtaana ka rabnaa adiga iyo aftigay Axmed Beef السلام عليكم صاحبات قيمها بدن كنت حنشرار كان حبينتا وركا maanta iyo warbixin cusub warbixintan waxaan ku eegi doonaa hadalka ka soo yeeray fanaanada Farxiyo Kabayare oo kadib markii warbaahinta Home Cable TV ay baahisay waraysi la yeelatay Sheekh Maxamed Saciid Cabdi laakiin dhaqaale laga ma helo fi aakhir minna kuma fiicna horumarkiisa wafanka Soomaaliya oo dhan waa asaas ah marmar baan isaadaa markaad yaabihii ugu dambeysay abwaanana aad u jeclahay oo Sadiq Barmad BK fanaankii hore Maxamed BK hadaba gabihan Maxamed BK ayaa ka baxay fanka fanaankan oo bilihii ugu dambeeyay ku sugnaa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin si hadda ah sheekh faafiya diinta Islaamka markii horena ahaa fanaan ku heesa afka Soomaaliga oo gabihan Soomaalida aad looga yaqaano hadaba fanaankan oo waray la yeeshay TV-ga caalamiga Home Cable TV hadaba fanaankan oo la yeeshay wariye ka howlgala Home Cable TV ayaa sheegay hadaba Maxamed BK ayaa sheegay in laakiin dhaqaale laga ma helo fi aakhir minna kuma fiicna horumarkiisa wafanka Soomaaliya oo dhan waa asaas ah marmar baan isaadaa markaad yaabihii ugu dambeysay abwaanana aad u jeclahay oo Sadiq Barmad dhowr fanaan oo tilmaamay ay fankas kaga soo baxaan soo kale Maxamed Saciid Cabdi BK ayaa sheegay in fanka hadda jooga aan wax kharash iyo wax dhaqaale runtii aan fanaaninta ku jira iyo kuwii ka baxayba aan waxba ka helinba hadaba in taas oo hadalkiisa ku soo dheeraaday uu sheegay inay xagga Ilaahay u soo noqdaan oo runtii ay ka mid noqdaan dadka wanaagsan Ilaahayna u soo dhawaadaan maadaama muusiga iyo heesaha ay xaraan yihiin hadaba fanaanadan Kabayare ayaa afka soo furatay oo jawaab degdeg ah siisay iyadoo sheegtay in Maxamed BK uu yahay qof diinta Islaamka yaani ku adeegta oo qalba dhinacii lacag ku jirta u carra hadaba Maxamed BK oo waraysigiisii ay ka soo bixisay falcelin dadka social media ee daawada ay runtii aad uga xumaadeen falcelintan oo la soo karo waa falcelintii ugu xumeed ee gafka lagala kaco qof islaam oo ku soo noqda ranjeyntii iyo himilooyinkiisa diinta Islaamka sidoo kale ma la soo karaa qofka xagga wanaaga u dhaqaaqa wax dhib dad ka soo horjeeda ayaa la soo jiray laakiin hadda waxa soo baxay dad ka soo horjeeda ee loo dhaqaaqa xagga diinta Islaamka oo lagu dhaqmo oo iyo horumarkeeda iyo la gaarsiiyo dadka kale soo kale Farxiyo Kabayare oo runtii ah fanaanad gabihan Soomaalida ka caana soo kale fanaanadan oo lagu tilmaamo loo bixiyo jagaxiir hadaba muuqaal yar oo laga soo duubay runtii muuqaal aad u dheer aan isku soo ururay intii xogta muhiimka ahayd aan ka tagnay hadalkii macmacdaha ee runtii ku soo jawaabtay Farxiyo Kabayare iyo inta ugu muhiimsan aan soo ururnay waa tan ee ila fiirso daawade qofkii ku weydiin lahayna waa aniga run ahaantii marka maadaama aadan hadda adiga aadan sid caadiga ahayd fanaaniinta la soo xiriirin laakiin aad jeceshahay inaad shaashadaha iyo TV-da ka soo hadasho waxaan ba jeclaystay oo igala sii fiicnaataba maadaama maanta aad soo hadashay inaan arrintii aan maqlay ee na soo gaartay inaan hadda si public kugu weydiiyo kor nagala socda BK Garcia su'aashaas iyo arrintaas waxa ka jira su'aasheeda public aan kugu weydiiyaa insha Allah jawaabtaana ka rabnaa adiga iyo aftigay Axmed Beef marka muhiimaddu waxay tahay wax walba adduunka waxa fiican in daacad laga noqdo mashruuca hadduu jiro BK inaad tiraahdo dar Ilaahay aan fan uga baxay qalad ay kugu tahay waliba anoo kugu taageerayo haddii dhaqaalahaas mashruucaas dhaqaaleed uu jiro inaad qaadato waliba anoo kugu taageerayo oo waxaan kugu taageerayana ay tahay inaan fanka Soomaaliyeed faa'iido uusan lahayn oo dhaqaale laga sameeyo kulligeen anagoo fanaaniin aan wada qirayno